muxuu mucaaridku ka qayliyaa waxaynu ka hadalnay halkan mucaarid dhulkii ilbaxnimada iyo dimuqraadiyadda ayaad joogtaan mucaaradada waxa macnaheedu tahay mid constructive ama horu socod iyo dibudhis iyo wanaag ka shaqeysa mucaaridka macnihiisu ma aha lugta qabo yaanu dhaqaaqin jugjug meeshaada joog halka ayaynaan dhaafin taasi waa mucaaridnimo gaariyo wuxuu yiri horu soco dibu soco horu soco hore iyo dibba u soco darandoorigaad qaad soco waa qof halkaas u gaardiyo Soomaa waa jugjug halkaaga joogti mucaaridka nooca aad moodid inuu inala jira waxa weeye mid raba inaan lug la qaadin lugta waxay jiidayaan mid aan raaf inaan la qaadin raba dhowr shay baan tusaale u soo qaadanaya arrimihii khaliijka markii ay hor yimaadeen annaga waxay nagu ahayd fitno imtixaan sababtu waxa weeyaan iyadoo madaxweynuhu tagay Saudi Arabia $2 bilyan mashaariic ah ay noo ballan qaadeen budgetary support ay noo ballan qaadeen gadar ka hor madaxweynuhu tagay sidaas la eeg ay noo ballan qaadeen inay nala shaqeeyaan ayaa fitnadii khaliij ku dhacday waxa qasab nagu noqotay in aanu laba daran mid daran dooro lagu yidhi ayaa nagu dhacday aabaha iyo hooyada way carabtu waa walaalaheen keebaa la cadaada iyo afkaan kala haya waxaanu raanagu afkaanu kala haynayna midna ma rabnay in la cadaabe walaalayaalow heshiiya tii markaanu dooranay mucaaridku waa qayliyeen nimankii ma aragtaanay dayrkii ma kay gubeen waxay raaci waayeen meel hebla waxay raaci waayeen halkan maxay anagu meelna ma raacin waqtahay mowqif dhaxaanu qaadanay tii waxay dhashay qaylo iyo dhaliil iyo maxaa halkan loo mari waayay imtixaankii labaad wuxuu ahaa oo guul weyn inoo soo hooyay isdhexgalka dhaqaale ee gobolka Soomaaliya Itoobiya Eritrea in ay dhaqaale ahaan isu dhexgalaan waa ogtihiin Itoobiya ilaa 1532 bay noolahay ilaa Axmed Gurey gowdaynu isku haynay 600 sanadood colaad ah baa Itoobiyaankeena dhex taalay anu waxaan xasuustaa yaraantaydii marka ay bishu bilato waxaan oran jirnay bishii bilataba barba ka hadhee allow xabashida xabaal ku riday Soomaha intii ni soo gaadhay waxaana lagu koriyay Itoobiyaan nacayb waxaana lagu koriyay xabashi nacayb waxaana lagu koriyay in qofka Itoobiyaankii qof cadow ku ahuun uu yahay anu aad sabab waxbarasho u tagay 94kii dadna inaan amxaara baanu historyga wada dhiganay wuxuu igu yiri niyow ma Soomaali baa tahay wuxuu yiri dugsiga dhexe aan oo dhigta Jimma ayaa markii standardkii imtixaankiina laga qaaday baa macallinkayagi filimna daawadsiiyay bahalkan la yiraahdo dinosauriska soo garan maysaan ee la yiraahdo dunida uu ka dabar go'ay ayaa filimka kamid ahaa waxaan ku yiri macallin waxaas ma Soomaali baa wuu qoslo wuxuu yiri ma Soomaalidu waa dad inala mid ah laakiin col baynu nahay waxa kale uu iga sheekeeyay xisaabihii masalooyinka la oran jiray intaynii dugsiyada Soomaalida wax ku soo baratay hoose dhexe sare soo masalooyin waa soo marteen Soomaa masalada markay iyaga loo dhigayo waxa loo dhigi jiray diyaarad MiG 17 ah ayaa qaatay intaasoo haamood oo mid walba intaasoo qumac uu ka dhacayo Muqdisho iyo Hargeysa ayay bamgaraysay bayloodkii ababe ee waday haddii 5 qumac uu Hargeysa ku rido 5 qumacbana xamar ku rido qumiciibana intaasoo madax uu leeyahay intaasoo Soomaali ahna uu dili karo imise Soomaaliya buu dilay nacaybka lagu beeray waa educational psychology goodii ma ogtahay nacaybka lagu beeray eeg madaxweyne farmaajo waxa uu hormuud ka noqday inaynu dhaqaale ahaan isu dhexgalno walaalayaal oo colaad uma baahnin nabad baanu u baahannahay haddii la dagaalamay 77kii iyo 64kii haddii la dagaalamay 1532kii Axmed Gurey oo Soomaali ahaa iyo Soomaalidii uu watay ilaa Galaadios ay daga shimbiro kure iyo ambagishan ku jabiyeen labada goorba Yurub baa u soo gurmatay 1532kii Portugiis baa u soo gurmaday Vasco da Gama ayaa taqaaneen walaalkii Christopher da Gama oo 400 oo Portugiis u watay ayaa u soo gurmaday Kristaanka awgeedna u soo gurmaday Axmed Gurey Portugiis baa dilay ogaada Soomaaliya may dilin Itoobiya taariikhda ka marakacaysa mar labaad 77kii baynu istilnay
naasireed ilaa aad sababo dusheeda ciidamada Soomaalidu gaadhay waa ogtihiin Soviet Unionkii aynu iska saarnay Mareykan iyo Ingiriis iyo midowgii Sovieti ama Eastern Bloc iyo Western Bloc waxa loo heshiiyay Soomaaliya bilaa saaxiib ay noqotay soo marxaad kamayna wada ahayn la socay waxa la soo waayay Soomaaliya saaxiib ay leedahay walaalayaal waynu surrannahay xabaal iyo ninkeed loo kala tag Soomaali haddaan nahay inaga ay surran 30 sanadood ee maanta aynu burbursanayna miya aragteen cid inoo soo gurmatay mar walba marka Itoobiya wax daaraan waxa uu soo gurmanaya walaalaheed reer galbeed maantadan oo ay Oromo gacanta ku hayso xukunkii dirqo kuma imanin waa loo soo gurmaday Mengistu Haile Mariam markii uu dhacay baa loo soo gurmaday inaga haddaan cid bay inoo soo gurmanahayn in aynu nabad ku noolaano Soomaaliya in aynu garanno masaarida 100 milyan iyo dheeraadka ah Israa'iil shaayar bay dooratay inay la noolaato nabad kula noolaato maadaama ay loodi kari weeyday Jordan baan tagay waxaan ninkii boqor Xuseen ahaa nin aad u maskax badan buu ahaa meesha Aqaba la yiraahdo baan shiru tagay Aqaba waa meel yaro sida U shape ka leh halkan waxa ku taala Aqaba daarta ku xigta waxa ku taala Aylat leerkii Israa'iil waa ku muuqda daarta dhinacan ku xigta waxa ku taala Sinai halka waxa ka sii xigta Saudi Arabia afartii leer baa sida isugu muuqda waa meeshii Salaaxudiin al-Ayyub Aqaba dhinaceedani uu ku jabiyay kiristaankii isa soo kaashaday waaga laakiin boqor Xuseen wuxuu isiriseed ku jiri kartaa Israa'iil kaligeed ma reer galbeed oo dhan ba ka dambeeya nabad ku noolow islaamnimaduna nabad ku diidi mayso yuhuudu waa uu la ganacsanayay nabigeena Maxamed aha Madiina soo maaha soo taariikhda islaamku kama rakici mayso walaalayaal haddii Israa'iil nabad lagu la nool yahay waa maxay sababta looga qeylinayo maxaa loo la heshiiyay Itoobiyaanka maxaa loo la heshiiyay Eritrea maxaa isdhexgalka dhaqaale ee gobolka madaxweynaheenu hormuudka ugu yahay annagu nabad baanu bidnay dhaqaale iyo wanaag baanu bidnay haddii kale waxa dhacaysa qabaa'il bayn Soomaaliya in halkaas uu leeynoo weedarto shalay sidii jabhadaha mid waliba un xarafka hore isaaqi asnan bay la baxeen hawiye USC bay la baxeen daarood SSDF bay la baxeen raxweyn mar dambe aarareen la baxday warma waxa rabtaan jabhadihii kanaalkii markii aanu soo xidhno madaxweynuhu soo xidho yiri nabad baanu ku wada noolaanaynaa waxa la yiraahdaa maxaa loo la heshiiyay waxa la rabaa in un magac loo soo huwiyo markii madaxweynaha la isra fikran waayo adii sababa qiblada aanu tukanayna ay noqoto waxa mucaaradka aanu isu haynaa isdhexgalkii dhaqaalaha aanu isugu haynaa waxa weeye maxaa nabad u qaadatay arinta kale aan doonayo waa ninkii Haysam ahaa wax aan dhaqanka bini'aadminimada iyo diblomaasiyadeed ku qurux badnayn buu noola yimid social media ayuun baanu ka helay warbixin 20 bog ah oo wasiirka amniga ku socota ilaa 10 wasiiroo kalena ogeysiin ay ku leeyihiin anigu wasiir ducaalan wacayo waxaan ku weeray wasiir qoraalkani miyuu ku soo gaadhay ma garanaayo social media aan ka helay buu yiri markaan war dhaqankani dhaqan Axmed Mudow ay yiraahdo dhaqan ogaadeen qofkaasi ma laha war dhaqankani dhaqan ogaadeen ma aha markaanu nidha waa sidee ya dib u eegnay oo ninkii iska saarnay ya waxa la yiri deyrkii ma ka hadana lagu nimankii mucaaradka aha haysan bay u doodayaan ma ogtahay nin digtooro cilmigu biyadhigay oo aanu isku deegaan ka soo jeedno ayaa waliba qoraal 10 bog qoray ya oo xildhibaana waxa ku leeyeen haysan malag baa la saaray war ma ahay adeerow nim aanan nala shaqeyn kareen oo nabadgelyada lugaha boocda ku taagan khatar ku geystaan naga bax war midowgii Sofiyeedid baan 77kii nidhi looma baahnahay naga baxo dhulku biinaya hay naga baxo ya baabiinaya hay naga baxo Soomaha war haysan hadaan nidhahay naga baxo madeerkii makaan gubnay arinta afraad oo imaka aydun arkayseen oo indhiheeda ku arkayseen waxa weeye shidaalkan oo heshiiskiisa dawladda inaga horeysayba ay shirkaddan sahaminta ay samaysay ay gashay shidaalkii waa kan Maxamed Aberdeen baan wada dhigan jirnay oil and gas state control iyo contracting investment in the energy sector waxyaabahan Maxamed wada baranay waa carareeno waa qayliyeeno waxay yiraahdeen hayaay haddii maanta sahamintaas wax bal lagu arko 10 sanadood kadib baa laga yaabaa in la yiraahdo meesha waxba ka soo baxay
boqol dariiqo ka horeeya maaragtay ayaa jira waxa jirta wax la yiraahdo 2D seismic survey haddii 2D ga wax lagu waayo 3D baa la maraa haddii marka ka dambeeya la yiraahdo production sharing agreement kiibay goreeno nimankii mucaaradka ahaa waxay yiraahdeen dalkan uu doodaynaa kani ma jiro kooma jiro keer ma jiro haddana waxay yiraahdeen nimankii yiri dalkan uu doodaynaa stabilization clause ma jiro stabilization clause waxa la yiraahdo shirkadaha dani ugu jirta dawladdu waxay ka hadashaa renegotiation oo Vienna Convention ku qotonta waxa la yiraahdo Rebusik Stantibus oo ay macnaheedu tahay duruufihii dhaqaale waa isbedeleen mar walba aan dib uga hadalno kii ay dawladda uga hadli lahaayeen may eegine waxay yiraahdeen kii shirkadda aqoon darradii awgeed marka waxaanu aragnay mucaaridkii meel kasta oo la isiraadintii qaranku waa ku jirta waa qaylinaya warniman yahow waxaanu nidhi saaxiibayaalo halkeebay salaadu ka xidhmi laadahay waxay yiraahdeen war hadda dhaqaaqdaan oo maantana dadkii iska jeedisaan Soomaaliya waxay isku dilaysaa waa baahiye kismaayaanu u tagnay shir badweynta Hindiya iyo wabiga Jubba halka ay iskaga darsamaan oo barwaaqo ah oo la yiraahdo goob weyn dadkii markaan ula shirnay waxay yiraahdeen waxaanu u baqtinaa waa haraad iyo gaajo mucaaridku waxay yiraahdeen gaajada iyo haraadka hal lagu hayo dadka haddii kale waa xoogaysanaysaano meeshaba idinkama qaadi kareyno marka wuxuu mabda ma ahay ma ogtahay waxa weeyaan hore una noo dhaaftaan meesha ay ka baxdaan hadaa wax qabataan naga hor dhaqaaqi beesan waxaan xasuustii oran jirnay war nimanka maxay u bukaan maxay ka bukaan halkee wax maaragtay baryada aan diidna miyay ka bukaan beeraha aan qodonno miyay ka bukaan baahida aan reebno miyay ka bukaan nolosha bidhaantay miyay ka bukaan maxay u bukaan maxay ka bukaan waxaan xasuusan doonayaa inaan ku soo horta waxaan doonayaa aan ka hadlo oo idinku bishaareeyo madaxweynuhu markii aan ka yimid safiirkii London si dhaxsaan idinku soo magacaabina insha Allah marka taa ka warwarina safiir fiican oo nin weyna ayaanu idin soo magacaabina oo idin la shaqeeya idinkana idin mideeyo habeenkii markaad guryaha tagtaan maalintiina oday baa la yiri habeenkiina habar inaad wada oday maalintii noqotaan oo habeenkii aan maaragtay la kala shirin oo markaad imanka kale naga tagtaan oo kala dareerno aan la oran maaragtay si hoos aan loo Soomaalinimadii la soo celiyo waxaan doonaynaa qarannimo goormay hadmuu qarantis qaadaa hadmuu qira heshiiya qeyrkoodna gaadha hadmay quruxi dhalataa bulsho qaayo leedahay qarannimo la gaadha heesta khatar daahiriyo hawlada waa bari oo aan hayn ayaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliya ha noolaato guul baan idin rajaynayaa waa sii wadi lahaa laakiin waxa la igu yiri time out waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh